tartanka kubadda cagta bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maalintii shalay ahayd si rasmi ah uga furmay garoonka kubadda cagta Alamse ee magaalada Burco. Tartankani bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka qayb qaadanayaan 10 kooxood oo kamid ah heerka koowaad ee gobolka Togdheer ayaa waxaa suurtageliyay hay'adda Soifo oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer. Tartankan ayaa waxaa Ramadaan kasta suurtageliyay hay'addan Soifo oo gacan ka helaysa wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ee gobolka Togdheer. Waxaana sanadihii hore loogu magacdaysay koobkan Soifo Cup halka sanadkan loogu magacdaray kor u qaadida tayada waxbarashada iyo ka qaybgalka talada dalka dhalinyarada Soomaaliland. Munaasabad lagu daafurayay tartankan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer, isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer, kooxaha kubadda cagta ee kulamadani dheelaya, booliska Soomaaliland iyo dadweynaha aad u tiro badan oo soo buuxdhaafiyay garoonkaasi. Ciyaarta furitaankan tartankan intii aanay bilaabin oo ka dhex maraysay kooxaha Goodir, Burco iyo Star ayaa waxaa gudoomiyay ku-xigeenka gobolka Togdheer Abdaahir Xasan waxa uu dhalinyarada u soo jeediyay hadallo dhiirigelin ah isagoo ugu baaqanaya inay ilaaliyaan habsami socodka tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan una hoggaansanaan sharciyada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer. aad bay wasaaradda sportska iyo dhammaan dhalinyaradu u mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa waana la shaqeyn doonaa insha Allah nabadgelyada intuu soconayo. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Saleebaan Ducaale wax la dhagacaday iyo isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad ayaa iyana ballan qaaday inay si wadajir ah uga hawlgali doonaan sidii uu tartankan u noqon lahaa mid ku soo gabagabooba jawi nabdoon. in koobkii kubadda cagta ee bisha Ramadaan la dhigi jiray inuu furiyay galabta laga bilaabo dadweynahana waxaan ka codsanaynaa si nabadgelyo u daawadaan oo ay ku soo dhaweeyaan kooxaha ku ciyaari doona garoonkan ku ciyaari doona bisha Ramadaanna waxaan ka rajaynayaa inay si nabadgelyo u ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta garoonku leeyahay. wasaaradda sportska ee gobolka Isduwaha aad baan u salaamayaa. bishii Ramadaan waxa garoonka kubadda cagta Alamse Stadium Burco ay naga furmay tartamadii kala gedisanaa ee kubadda cagta oo ay ku loolamayaan 28 naadi oo 12 naadi oo heerka koobaad iyo 18 heerka labaad. waxaan halkan aad aan ugu hambaleynayaa oo ugu amaanay u salaamayaa ururka Soifo oo diyaar u ah mar walba horumarinta dhiirigelinta iyo adeegida danaha sportska ama dhalinyarada gobolka Togdheer min gudoomiye ilaa shaqaalaha dhamaantoodba waan u hambaleynayaa yani sida kalsoonida leh ee gobolkan mar walba ugu agaasimaha hay'adda Soifo iyo ugu maalgelinaya tartankan Ramadaanta ayaa isagu ku tilmaamay tartankan mid ka dhashay duruufaha ku xayndaaban dhalinyarada isla markaana ay u taagayeen hay'adda Soifo dhiirigelinta yarta gobolka Togdheer. Cabdirasaaq Farax Abdullaahi, shabakada caalamiga ee Burco.